arrintaas in baaritaan la sameeyo guud oo arrinta la baaro oo maaragta khubaro Soomaali iyo khubaro kale la isugu daro oo dadkii dambiyada gale oo dad maaragtay shicib oo guryahoodii hantidoodii dhibaato u geystay waa arrin macquul ah arrin loo shaqeeyo u baahan tahay waa arrin in loo juhdi loo galo u baahan tahay arrin maxkamad maaragta soo saar u baahan tahay laakiin in mid la xasuusto shabaabka iyo maxkamadaha naftigooda Etoobiyaanka horta waxa weeye caalamka ku qoray xaafada dhan bay dhulka rasmi madaafiic ku garaaceen dambiye ijraam xarbi inay galeen waa cadda laakiin dowladda maxaa la yiraahdaa qoliyahaas ku sheegay dowladana qayb ka ahaayeen ayay taageerayeen la socdeen hadda waxa la yiri marka qaarkood hadal aan sheegtay adeen kugu soo laabtay maxkamadaha iyo shabaabka naftigooda ayaguna qaybi waxay ku leeyihiin jariimadii xamarka dhacday oo go'aankoodii hore ee ahaa 2007 December ay go'aan ku gaareen oo inaan magaalada ka baxaan magaalada aan lagu dagaalamin way bedeleen waxay u bedeleen in magaalada dhexdeeda ay maaragtay xaafado madaafiic ka tuuraan isgooyo meel isgooyso dad ku badan yihiin inay bambooyin wax ka tuuraan ayagana lagu soo tuuraan hadee qaybi waxay ka tahay marka haddaad adigu xaafad iyo guri dhexdiisa aad xabad ka tuurto dabcan hadda ninkii kale oo kusoo jawaabay marka labadiinaba oo ah meelaha xaafado oo dadku ku badan yihiin haddaad go'aansateen inaad dagaal ka gashaan labadiinaba waxa waaye waxaad qaybaad ku yeelanaysaan oo marka haddii jariimo ay leeyihiin Etoobiyaanka iyo walada maaragtay isbaahaysiga la maxkamadaha iyo shabaabka nafkooda jariimadaas qayb ku leeyihiin maxaa dhacay ayagu waxay go'aansadeen in meelaha shacabku ku badan yihiin ama waxa laga yaabaa xabadii madaafiicda ay tuureen iyo shacabku dhacay ama waxa laga yaabaa markii madaafiicda xabad tuureen iyo xaafado galeen oo markaas xaafadii ayadu la eryanay maaragtay dhibaato ka dhacday taas macnaheedu ma aha inaan dhehayno dambi ma leh qoladan dowladda maxaa la yiraahdaa Nuur Cadde iyo Abdullahi Yusuf iyo Etoobiyaanka waa leeyihiin xaqna waa in maxkamadda soo saaro hadda qoladan ayana qaybay markaas ay ku lahaanayaan haddii marka la leeyahay jariimooyin dhacay hadda jariimooyinka ayagu qaybay ku leeyihiin taasna ma noqonayso sabab loo diido in lagu hadlo jariimo waxaa jirta lagu celceliyo oo ah mid gowraca qolada Etoobiyaanka masaajidka Hidaaya galeen wadaado oo waliba nin maaragtay aniga aan aqaan oo maaragtay qaraabo hoos aan ahayn ayaa meesha lagu laayay kulay hadii dadkii maaragtay waa iska warqaba oo wareystan iyo dad maaragtay meesha joogo horta wax gowrac meeshaas kama dhicin sida anaga aan ka war helnay dad goob joog ah saacay tahay hadana ka taayib dadnet Sheekh Shariif Sheekh Ibrahim Suuley oo afayeenka maxkamadaha website walba oo ay taageersan yihiin ama qoliyahan dibadda jooga ama qoliyahan dibadda jooga oo ay taageersan yihiin maxaa la yiraahdaa wax iska caabinta waxaa meel walba lala istaagay gowrac ayaa dhacay arrintaas arrin jirta maaha mana aha arrin saxa in loo adeegsado in wadahadallada hadda Djibouti ka socda in lagu istaago ma aha dadkii magaalada joogay ama masaajidka ka warqabay ama dadka tabliiqa dadkii la xiriiriyay waa ka warqabaan in arrintaas aysan dhicin saacay taana Shariifka hadda waraysi ugu dambeeyay BBC wuxuu yiri dadka noocaas oo kale lama hadli karo in dhacdo waa ka maqlay haddii maaragtay mana fiicna haddii istaraatiijiyad mararka qaarkood dagaalku waa bannaan tahay inaad been adeegsatid Amnesty International dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan waa shay Amnesty International ku khaldanay hadda reportkooda akhriso Amnesty International waxaa ku qornaa dad goob joog ahaa ayaa arrintan noo sheegay waana la ogyahay Soomaalida macnaha afkaar siyaasadeed jirto dadku waxay kala taabacsan yihiin marka wixii markaas ayagu marka ay isleeyihiin waa saxsan yihiin sheegan waana laga yaabaa marka inay saxsaneen because arrintu way shaqeyso cadaadis badan ay Itoobiya saartay oo beenta mararka qaarkood istaraatiijiyad inay noqoto laga yaabaa loo adeegsan karo ahdaaf siyaasadeed hadda waa markaas mubaax tahay diinta in maaragtay haddii ay u adeegayso danta ummadda laga yaabo in culimadu ay saas u fikireen oo markaas waa laga yaabaa laakiin arrintaas arrin jirta ma aha mideeda kaleeto hadii qoladan maaragtay inkastoo haddaan loo qaban karin qolada Itoobiya qoladan dowladda magaalka xataa haddii jiriimada noocaas ay dhacdaan loo qaban karin because waxa waaye shakhsiyaad iyo dad gaar ah galay waxay noqonaysaa markaas haddii heshiis dhaco oo la heshiiyo oo maaragtay maamul guddi loo soo saari karaa dadkii dambiyadaas kale maxkamadda la marsiin karaa dad noocaas oo kale jiriimooyin noocaas oo kale kala jiro maamul wadaad waxa lagu eedeeyay dad masaajidka soo baxay laayaan waxaa jirto idaacadaha oo dhan lagu soo daabacay dad maaragtay dhulka lagu jiiday dab lagu shiday saliid gaas inta lagu shubay gubi la leeyahay taasna jariimo insaani waa eedaha hataa jariimo insaani waa inkastoo la dhihi karo markaas askari ahaayeen dagaal ay ku jireen marka dalka jariimooyin badan ka dhacay oo fara badan oo dadka qaarkood waxay qabaylada qaarkood marka wada shaqeynaa jariimooyin kale ay iska sheeganayaan hadda meeshaan ma aha inaan maaragtay hadda aan taageerayno jariimooyinka dadka laga galsan hore soo sheegay ninka qaraabo hoos aan ahayn marka aniga xataa arrintaas si gaar ah ii taabatay
midda kaleeto waxaa la yidhi ma aragtay waxaa la yidhi tashriic ayay samaynaysaa oo haddii wadahadalada aan laga qayb gelin haddii dowlad marka haddii lala hadlo macnaha noqon ictiraaf noqonaysa ma noqonayso muhiim ma aha qofka haddaa la hadashid inaad ictiraafsan tahay dowladdiisa ma aha laakiin markii la wada hadlo oo hadda ninka wasiirka uu dib u heshiisiinta uu ahaa dowladda kumeelgaarka waxaa la yidhahdaa qoladan nurcadi wuxuu yidhi aan isku imaano maaragtay ablaas aan isku imaano ha wadahadalno yidhi haddii dad qaar waxay leeyihin tashriicii noqonaysaa qofku wuxuu ictiraafayaa dowladda kumeelgaarka wuxuu ictiraafayaa Ethiopia uu ictiraafayaa اللهم صل على محمد أنت صح معها والله قوض هذا الكلام وحلا والله هذا دولة الملكاركا نما حين أيضا لا اعتراف وحاول يصير معركة الوقت اللي لها دولة الصدورته أو دورشكو تقطع 2009 يصير إثيوبيا دخل الوقت صارها سوماليا الحين يصير وهشين الحين واللي قبائل كوحة ديجانا لقيتها جرسني هي قلنا معركة سكوشة دولة الملكاركا وحلا لقيتها جرسني صوت عن صوشة ما هنا دي دنيا دلك حرية جاهل dadku dhan Soomaalida qofka aragtid waxa waaye qof jecel ma jiro qofna inta karaay ku hadlaa in taanjigiisana barafar ama sanaad taagan yahay ama wadada wadnaha taagan qof jecel oo Soomaali ah oo wadan yahay ma jiro laakiin haddana tuunku waxaa jira xukunka arrintii issue of the governance yaa dalkan maaragtay maamulkiisa qabana waa arrin soo taagan muddo dheer yaa maaragtay khayraadka dalka ka jira shaqooyinka dadka ka jira iyo maaragtay xurriyadaha dalka ka jira iyo wax yaa maamula si loo maamula su'aal soo taagnayd waa marka dadku waxay leeyihiin maxay ku geligisan yihiin هذه إثيوبيان ومعركتي كلها هذا بنتو لأن سوماليا إثيوبيان معركة سيد ضبن ويحكولين إنفلونس يقولين سامين ضبن يقولين هذا أنا ضدك وحواس حرية لو جنولي أو قولي على بستوى ولا نولي ولا ضدك حيلين مركب محيكو بالجنسين هذه بال جار عني أنت معركتي كنا قاعد كاتين قبصته لقاها اللي كرين ينن معنا إثيوبيان محيكو بالجنسين ساسي ليه هذا برضو مساحسين مخلدين هذا عالم كو دينا لكن مروج النوع عشان جفتو رمع أو بيلها كاركود القمع aniguna hadda beelahan kamid ahay waa arkaayo waa dareemaayo waa la sheekaystaayo waxa la arki karo arrin meesha ku jirto arrintaas waxaan dhahnay qaabka kaliya oo lagu xallin karo waxa waaye in la helo dowlad doorasho ku imaata doorashana ku tagta markaas